waa rag aad u halis badan tiradooduna aad uma badna balse tayadooda ayaa aad u sarreysa waa manaxayaal aad u tababaran aad ayaana looga fikiraa tababarada ay qaadanayaan tababarada ay qaataan waa kuwa aad u sarreeya waxayna maraan training aad u halis badan oo ay muddo badan ku jiraan guuto yar oo kamid ah waxay burburin karaan kuwa badan oo kamid ah wadamada soo koraya halka ay halis gelin karaan dawladaha dhexdhexaadka waa dadka ugu halista badan caalamka lama aqoonsan karo mana aha ciidan la ogaan karo meelahay ka howlgelayaan waa guutooyinka fuliya howlgallada gaarka ah ee qorshaysan guutooyinkan halka loo diraa dhimasho mooyee noolal lagama sugin ilaa ciddii lagu amro inay noolal ku keenaan mooyaane magacoodu waa ciidamada gaarka ah ama xoogaga gaarka ah waa qaybo ka mid a ragga caalamka ugu khatarta badan waxayna maraan tababarro aad u halis badan waana sababta ay u yihiin xayawaanno bani aadam ah oo aan naxariista aqoonin waxay burburin karaan guutooyin dhan oo ciidamada militariga ah iska daa boolis iyo wixii ka sii liita way ka tababar sarreeyaan militariga caadiga wayna ka aqoon badan yihiin waxaa la baraa nooc kastoo huba iyo isticmaalkiisa waxaa sidoo kale la baraa nooc kastoo taatika dagaala heegan ayayna ku jiraan mar kasta kuma talagalaan wax jawi nabdeed iyo deganaansho la dhaho dareenkooduna aad ayuu u sarreeyaa mar kasta haddaba bal aan eegno shanta ugu halista badan ciidamada gaarka ah iyo waddamada kale leh kaalinta shanaad SAS oo British ah SAS waa ciidamada sida gaarka ah u tababaranaya Ingiriiska waa mid ka mid ah kooxaha caalamka ugu halista badan uguna tababarka sarreeya waxaana la aasaasay sanadkii 1941 waa ciidankii ugu horreeyay ee xoog gaar ahaan loo tababaro tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka qaab dhismeedkooduna waxay ka kooban yihiin 3 qaybood qayb kastana waxay ka kooban tahay 4 unug hoosaad halka unug kastana uu ka kooban yahay 65 nin iyadoo tababarka ay ka siman yihiin guud ahaan ayaa haddana unug hoosaad kasta wax gaar ah ku takhasusaa sida weerarada gaadmada ah howlgallada muhiimka difaacyada halista dabagalka kooxaha halista dagaalka goorilaha loo yaqaano ee ku dhufo ka dhaqaaqda ah waxay si dhow ula shaqeeyaan sirdoonka waa shiishahanno aan la waayeen halkay u jeediyaan qorigooda waxay ku hubeysan yihiin lana baraa nooc kastoo huba kuwa ugu casrisan waxaa sidoo kale la baraa taatikooyinka dagaalka kuwooda ugu halista badan waa dhiiranayaal aan baqin kuna kalsoon gacantooda qaabka loogu biiro kooxdan marka ugu horreysa waxaa la soo aruuriyaa 100 nin ee ugu halista iyo geesinimada badan ciidanka militariga waxaana la geliyaa tababar halis oo dheeriya si looga xusho 45 nin oo kaliya badankooduna waxay ku dhacaan tababaradaas haddana nin kastoo loo soo xusho inuu ka qayb qaato tababarada lagu xulanayo kooxdaas gaarka ah ayaa sidiisa halis u sii ah ka ku sii guulaystana hadalkiisa iska badaa waxaa u sii furmaya darajooyin kale oo tababar ah kana sii halis iyo taati ka badan kay ku soo baxeen tababarkooda waxaa ku baxa miisaaniyad gaar ah oo aad u badan waxayna ordaan in ka badan 50 kiiloomitir 2 saacadood oo dabaal ah buuraha ugu dhaadheer ayay fuulaan agab la'aan iyagoo wakhti loo qabanayo qaybo ka mid ah shaqooyinka ay soo qabteen waxay soo badbaadiyeen dad lagu afduubtay Afghanistan iyadoon ciidana kaga dhiman cidna kaga dhaawacmin iyo 10 howlgal ah oo aan la ogeyn oo ay ka fuliyeen dunida dacalladeeda kaalinta afraad kooxda Delta ee USA ciidamadan gaarka ah waxaa leh Mareykanka tababarkooda waxay tababar qaataan 1 sano oo xiriir ah xitaa fasax iyo Johnstone lama siiyo waxay socdaan socdaal aad u dhaadheer 90 kiiloomitir iyagoo alaabo culus ku raran yihiin waxaa la baraashiishka iyagoo kaga gudba ugu yaraan dhibco gaaraya 90% wixii ka hooseeyana wuu dhacaa waxaa la geeyaa dhulka aadka u qabow ama aadka u kulul waana inay xamilaan lana qabsadaan nolosha meelahan oo dhan badda ayay quusaan iyagoo muddo lagu hayo biyaha hoostooda si ay ula qabsadaan inay xilli badan ku jiraan biyaha hoostooda waa la gaajeysiyaa maalmo xiriira ilaa dhimasho ku dhowaadaan qaarkoodna dhakhtarka loo qaado waxaa la mariyaa nooc kastoo tababar ah waana sababta ay u yihiin kuwa xilli kasta iyo duruuf kasta ku dagaalami kara howlgalladii ay soo fuliyeen waxay soo fuliyeen boqolaal howlgallo ah oo ay dunida dacalladeeda ka kala fuliyeen gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya kaalinta saddexaad kooxda Alfa ee Ruushka kooxdani waa dadcun dugaag ah waa manaxyaal ka amar qaata Putin meeshii loo diraa waa inay halaagaan oo kaliya wax noolna aanay kaga imaan waxaana la aasaasay 1974 nooc kastoo tababar ah oo aan kor ku soo xusnay iyo kuwa ka sii daran ayay qaataan si ay u noqdaan kuwa la xaqiijiyay tayadooda waxaana lagu aasaa barafka iyagoo qaawan oo ay muddo ku jiraan kuwana wayba ku dhintaan tababarka ay qaadanayaan adeegiisa dartii waxaa sidoo kale lagu aasaa dhulka saxaraha ee aadka u kulul iyagoo qaarkood jirku u qarqarxo kaalinta labaad kooxda gaarka ah ee 777 iyo 995 ee Masar waa ciidan aad u taya sarreeya waxayna maraan tababarada aan kor ku soo xusnay oo dhan
lamana yaqaano tiradooda waxaana loo tababaraa sida kooxahaas caalamiga oo kale. howlgalladii ay fuliyeenna waxaa ka mid ah inay gacanta Israa'iil kala soo bixeen dad ay haysteen oo Masar u dhashay, indhahoodoo 5 ah ayayna Masar keeneen, waxayna wada mareen ciidamada Israa'iil ee kumaandoosta ahaa ee haystay dadkaas. kaalinta koowaad, ciidanka Navy ee Mareykanka waa ciidamada gaarka ah ee ugu halista badan caalamka. waa kuwa hadda hoggaanka u haya shaxda kala sarreynta kooxahan. waa dagaalyahanno xadka ka baxsan. waa la yaqaanaa markii meel loo diro inaad tahay meel aan rajo laga qabin, nololna loogu talagelin. kooxdan waxaa sanad kasta tababar u gala in ka badan 2,000 oo askarta ugu halista badan ee militariga Mareykanka ah, waxaana laga qaataa wax ka yar 100 qof. intaas ayaa haddana tababar kale ku sii kala hadha ilaa ay soo haraan in yar oo dusha bini'aadamka uga eg, laakiin wax lagu tilmaamo aan la garanaynin. tababarrada ay galaan lagama ogola xitaa 99%, mar kastana waa inay ku soo baxaan 100% oo keliya iyo wixii ka sii sarreeya. waa kooxdii loo diray Usaama bin Laden dilkiisii, waxaana howlgalkaas fuliyey 25 ka mid ah kooxdan. kooxda keliya ee kooxdan waddada iska marisay waxaa la hayaa kooxda Daalibaanta Afghanistan, oo iyaduna aan waxba ka liidanin kooxahan inta tiknoolajiyadda iyo dhaqaalaha ah mooyaane, taasoo hadda ka hor iyadana intay khidad iyo taatika u dejisay 15 ka mid ah ku quraacta goor hore oo aroor ah. kaalinta koowaad, ciidanka Navy ee Mareykanka waa ciidamada gaarka ah ee ugu halista badan caalamka. waa kuwa hadda hoggaanka u haya shaxda kala sarreynta kooxahan. waa dagaalyahanno xadka ka baxsan. waa la yaqaanaa markii meel loo diro inaad tahay meel aan rajo laga qabin, nololna loogu talagelin. kooxdan waxaa sanad kasta tababar u gala in ka badan 2,000 oo askarta ugu halista badan ee militariga Mareykanka ah, waxaana laga qaataa wax ka yar 100 qof. intaas ayaa haddana tababar kale ku sii kala hadha ilaa ay soo haraan in yar oo dusha bini'aadamka uga eg, laakiin wax lagu tilmaamo aan la garanaynin. tababarrada ay galaan lagama ogola xitaa 99%, mar kastana waa inay ku soo baxaan 100% oo keliya iyo wixii ka sii sarreeya. waa kooxdii loo diray Usaama bin Laden dilkiisii, waxaana howlgalkaas fuliyey 25 ka mid ah kooxdan. kooxda keliya ee kooxdan waddada iska marisay waxaa la hayaa kooxda Daalibaanta Afghanistan, oo iyaduna aan waxba ka liidanin kooxahan inta tiknoolajiyadda iyo dhaqaalaha ah mooyaane, taasoo hadda ka hor iyadana intay khidad iyo taatika u dejisay 15 ka mid ah ku quraacta goor hore oo aroor ah, faataxadana ku sagootiday ilaa ilka. miisaaniyadda ku baxda tababarka halkii askari oo ka mid ah kooxdan waa $5 milyan. hagaag, muuqaalkeena aan uga hadlayna ciidamada gaarka ah ee ugu halista badan adduunka intaas ayaan ku soo koobaynaa. muuqaalka xiga intaan ku kulmayno, amaana Allah.